xarunta ganacsiga Villa Carish oo ka kooban maqaayad laga helayo cuntada noocyadeeda kala gedisan, kubashiin, howlal shirarka ah iyo sidoo kale goob loogu talagalay in lagu dalxiiso ayaa maanta xariga laga jaray taas oo ku taalla Beledweyne. Xaruntan waxaa hirgeliyay Cali Axmed Cabdulle Cariish oo ka mid ah qurbo-joogta Hiiraan ee dib Beledweyne ugu soo laabtay waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada. Aasaasaha ahna milkiilaha Villa Carish ee Beledweyne laga hirgeliyay maanta Cali Axmed Cabdulle ayaa sheegay in ujeedka xaruntan uu hirgeliyay ay tahay horumarka gobolka iyo sidoo kale bilicda magaalada. Waxa uuna sheegay in howlka shirarka uu yahay mid bilaash ah. markaan u soo noqdo ujeedada Villa Carish waxa loo dhisay runtii oo iga dhaba in lagu horumariyo arrimaha bulshada, lagu horumariyo, in dhaqaalaha lagu horumariyo iyo in wacyigelin la sameeyo, dadkii la wacyigeliyo. waxaan u soo jeedinayaa dadka ehelka u ah arrimaha aan sheegay inay barnaamijyo u diyaariyaan dadka oo ay halkan yimaadaan, wax dhaqaalaha la weydiinaya ma jiraan. waxa kale oo idin soo kordhin doonaa insha Allah inay noqoto meel furan oo 24 saac raashin aad cunto aad ka helayso hadii Ilaahay yiraahdo, oo dadka safarka saqda dhexe ku soo galaa ay maaragtay raashin ay ka heli doonaan hadii Rabbiidmo. qaybaha kala gedisan ee bulshada oo munaasabada ka hadlay dhankooda ayaa soo dhaweeyay xaruntan ganacsiga ee Villa Carish ee Beledweyne laga furay. waxaan leeyahay ganacsigan maalmahan ku cusub muxuu ahaay magaalada Beledweyne iyo guud ahaan Soomaaliyaba waa barnaamij loo baahan yahay ee ummadda Soomaaliyeed dhiirigelin u ah. marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa ganacsadaha soo hirgeliyay ganacsigan quruxda badan ee Villa Carish. waxaan leeyahay jazakallahu khayr. waxa sameysay waa wax loo baahan yahay, waa waxay bulshada ay tabaysay aad loogu baahan yahay. waxaan leeyahay aadan ugu faraxsanahay in ganacsiga sidaan oo kale inta la badiyo. bacdallahi waxaan u mahadcelinayaa walaalka Cali Axmed Cabdulle Cali Cariish oo nin walaal ah oo maanta xafladan lagu daafurayo Villa Carish oo ah ganacsi weyn oo ku soo kordhay magaalada Beledweyne. markii ay ganacsigiisii oo maaragtay faa'iido gaaray oo dalkii muxuu ahaa isgaarsiin fiican ay ku soo korortayna qurbo aaday sida uu sheegay 28 sano isagoo naga maqnaa inuu maanta u soo laabto dalkiisii oo magaalada Beledweyne u soo dhigo oo ganacsigan quruxda badan oo ka dhiso waa waxna farax gelinaya. taas waxaan uga mahadcelinaynaa isaga walaalaha kale ee qurbaha jira ama dalka dibadiisa ku kala maqan ama aan wax qabanna waxaan leenahay ha ku soo daysadeen ganacsigiisaas, ha ku soo dhiiradeen. dalku waa nabad, wax qabad buu u baahan yahay, maalgashi u baahan yahay, cid kastana waa ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala. walaalka muddo 30 sano dhawaadkeeda ka maqnaa wadanka ee u fikiray inuu dib u soo laabto asagoo horumarinaya dhulkii dadkiisa iyo dalkiisaba oo maaragtay intaanoo qarasha iyo intaanoo maaragtay sheegeen horumar sameeyay asagana aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. waxaan leeyahay marka arintan xafladan maanta oo maaragtay furitaanka Villa Carish yani mid farxad weyn u leh waa in dadka gudaha jooga kuwa dibadda jirana ayagana waxaan maaragtay ugu baaqaynaa insha Allah taala ayaguna inay sidaas oo kale uga soo qayb galaan. mar haddii la yiraahdo ganacsiga dadkuna maaragtay uu horumariyaa yani noloshuna way ku jirtaa bini'aadanka. marka waxaan leeyahay marka in ganacsigaas la wada istaago qofba meeshii maaragtay markaas ama uu shaqadeeda yaqaano ama maaragtay uu ka qaban kara inuu ka qabto. salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa ganacsigan quruxda badan, howlashan quruxda badan Villa Cali Carish magacaasa ku qornay meeshii fiitiday. waan u mahadcelinaynaa horumarka magaalada iyo ganacsiga iyo waxyaalaha kobciyo waayo magaalada. haddii la helo ganacsi oo saan ka hota nin kasta oo ku soo dhiirinaado inuu wadanka yimaado ganacsiga ka furo horumariyo waxa waaye bulshadana way horumaraysaa. waxaa kaloo mahadcelinaynaa walaalkeen Cali Axmed Cabdulle Cali Cariish oo asaga oo Yurub joogo sharci haysto uu soo horay naftiisa iyo maalkiisa inuu soo celiyo dalka uu ku dhashay. laan dibadeed wallahi Soomaalidu waxay dhahaan maxay ahayd sagaar badatay waa bidda dhulkeed. marka annaga ka rugan casi ahaan waxa aan ku faano waa ganacsiga sharafta leh ama soo kordho
marka annaga farxaddeena lama koobi karo maadaama ganacsi qurux badan sharaf badan karaamo badan lagu soo kordhiyo gobolka waxaan leenahay sida intii hore u sheegtay ganacsatada dhaqaalaha hayso kuwa qurbo joogta ah waxaan leenahay inay dalkooda maal gashadaan inay wax soo kordhiyaan maanta cali cariish intuu dabkiisa shidaa waa u jeediin asagana waxaan leenahay walaalkeen cali cariish si aad iyo aad u qiimo badan u soo dhaweynaynaa cali oo soo barbaar cali oo soo badbaad sida sharafta badan qiimaha badan maaragta aad sharaftan u samaysayna insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu kaaga abaal mariyo waxaan u mahad celinayaa xafladan quruxda badan ninka noo furay oo qurbo joogta cali axmed cabdulle cali cariish ayaan u mahad celinayaa waxa kale oo u mahad celinayaa inta soo ajiibtay oo timid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladaha badan oo ka qayb galay oo horumarka maalin walba inaan arkaan jeclahay ilaahayna ha noo siyaadiyo awalan waa u mahad celinayaa waa bogaadinayaa waanu u ducaynayaa in asagana uu ku baraaro annaguna horumar noo noqoto asnay u noqoto qaar kalena ku daydaan insha Allah maxamed ibraahim siyaad